السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. maanta waxay soo fadhiisay baraha bulshada ma ahan waxyaabo xun ma ahan, maxaa yeelay dada waxay u soo fadhiistaan waxyaabo xun inay sheegaan. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo culimada iyo waxaan rabaa inaan ka hadlo gabdhaha Sheekh Shantaay caayo iyo waxyaabaha uu sababka ah. Sheekh Shantaay waa sheekh caan ah sidaad wada taqaanaan, waana sheekh diinta Ilaahay u taagan inuu lagu dhaqmo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta Sheekh Shantaay caaydiisana waxa uu sabab waxaan dhihi lahaa culimada ayaa u sabab. waxa la arkaa badanaan culimada mase gabdhaha dadka soocaya waxay leeyihiin sheekh hebel ma ila soo hadlo. sheekh hebel haddoo ila soo hadli lahaa waxay ku leedahay gabadhu anigu waan ka leexan lahaa. marka culimadu waxa leeyahay hanuunku dadkaas idinku xiran yahay. idinku waxa tihiin culimo, waxa tihiin al-ulama warasatul anbiya dadkoo dhahay nabi kaleey salaatu wasalaam. culimadu waxay dhaxashay anbiyada. anbiyadu waxa laga dhaxlina lacag ma ahane waa diin weey. marka diinta la raba inaad dadka u sheegtaan. masaa'id tiraahdaan Sheekh Shantaay wuu khaldan yahay, masaa'id tiraahdaan kuwan juhalada sheekh la doodayo inaad tiraahdaan waad khaldan tihiin. Sheekh Shantaay waxa ku leeyahay waa soo daahday ayaa ku leeyahay. diintan anigu waan rabay inaan digo. sababaha aan u digi wayna waxa kamid ah culays xaqiiqa ka yimid. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wala talbisu al-haqqa, ha ku dhaxqasina ba Ilaahay leeyahay oo ha ku ladina haqqa bil baatil, baatilka ha ku dhaxqasina. haq adigu taqaano laba qof oo isku haysata hadaad aragta kala saar. wa taktumuna al-haqq, Ilaahay wuxuu leeyahay xaqana ha qarinina. wa antum wiliba ta'lamuna idinku. culimada way ogsoontahay. culimada diinta lasku haasto. diintan Sheekh Shantaay iyo dadkan juhalada ay isku dhagan yihiin ay sheekha soo aflagaadeynayaan way ogsoon yihiin culimada. inay ogsoon yihiin waxa kaaga daliil ah dadka sheekha soo caynaa waxay ku dhaayaan sheekh hebel moo ka soo hadla. idinka culimo maxaa idin daar mase waxaad wadiin maahida Soomaalida ahadu dhehaysi af wax cuni xisho oo lacag idinku leeyin maad cunteen alla idinka dhiibay. anigu waxaan rabaa inaan xaq ka hadlo. wax idinku leeyin hadaad cunteen wala idinka dhiibaya. nin reer waqooyi la weydiiyay markaas waxa la dhahay lacagtu maxay qabataa. lacagtu waxay dhahay dadkay aamusisaa. culimada lacagdooda may cuneen marka waan fahmi waaysanaa anigu. Ilaahay wuxuu leeyahay kalka baatilka xaqa ku dhaxqasina wilinka idinku og. xaqana ha qarinina. waan sheegaynaa marka waxa xaq ah. atamuruna an-nas, Ilaahay wuxuu leeyahay dadka ma waxaad faraysaan bil birri wanaaga miyad faraysaan wa tansawna anfusakum, nafyihiina ma ilooweysaan. afala taqilun, ma wadan aqli leh. maanta culimadu waxay ku jirtaa marka atamuruna an-nas. aayada sidaas eeda waxa la leeyahay atamuruna anfusakum, nafyihiina wanaag miyad faraysaan wa tansawna ma ilooweysaan an-nas, dadka ma ilooweysaan. afala taqil, ma wadan aqli leh idinku. marka culimada xaqana nafsadooda way farayaan maanta.
dadkana uma sheegayaan sheekh dadka naarta ku khubmayo adigu hadda naar galana maxaad ka faa'iiday u sheeg runta dheh waxaad tiraahdaa war ma saxnidiina sheekha idinka saxani raac dhah sheekh shanta ina la hadashaan war ma saxnide dadkan juhalada ka saxan dhah inuu sheekha saxan yahay anigu waan ogsoona ya marka sidaas la idinka rabaa inaad u hadashaan mase aayadan way beddelmaysaa ilaahayna ma bedeli karno laakiin ta'khir iyo waxa ku dhacaya aayad nafsadiina inaad wanaaga fartaan dadkana xumida aad ka reebi weyso waa cilid jirta weyn marka dadka sheekh shantay caynay waa culumada weyn sidaas wuu uga sheekh fadhkuruni ixasuusta ba ilaahay leeyahay oo ixusa ya adkurkum aidin xasuuste maantu culumada waxa loo xasuuso waysan yahay ilaahay ba ay kama xasuustaan dadka uma sheegaan ya gabar baatil la wareegayso ya masa baraha bulshada waxaad ku arkaysaa gabar hal shay wadan diintaas sheegba diinta islaamku ma ahan diintaas diinta way diintaas alla sheego ya ilaahay wuxuu ku leeyahay marka ha igu shukriya ha igu kufrinina haddaad ku kufrisaan ilaahay wuu idin ciqaabaya ya dadkan baraha bulshada wareegayo kastuumada la wareegayo naga hera baa idin leeyahay dumarka nabigu wuxuu dhahay fidna oga dhib badan ogama tegin ragga dumarka ya dumarka ha la iska ilaali nabigu nagu dhigay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la rabaa dumarka inay ka digtoonaado oo iska ilaalin ya maxaa yeelay waxay rabaan nuurka ilaahay inay dumiyaan sheekh shantay waa nuur yuriiduuna liyudfi'uu nuur allah waxay doonayaan baa la leeyahay nuurka ilaahay inay damiyaan wallaahu mutimmin nuur ilaahayna wuu taam yeelayaa sheekha ilaahay baa waardiyeynayo ilaahay baa juhalada ka celinayo walow kariha alkaafiruun way nacayaan baa ilaahay leeyahay kuwa gaalada marka kiraahu marka sheekh culumada la magacaabay way istaqaanaa ha soo hadlaano maxaa yeelay dadkan hanuunkooda wuxuu ku xiran yahay inaa idinka soo hadashaan ay kaaba ku dhahaya ba sheekh hebel hadduu soo hadlo okay maalinta qiyaama marka xujay kugu noqonaysaa ya maxaad dadka ugu digi waysay baa lagugu qabsanaya dadkan adiga markhaati ku gashteen sooma ya wala nudiiqannahum ilaahay wuxuu leeyahay waxaa idin dhadhansiinaynaa min alcadaabi aladnaa cadaabkiisu ka ayaan idin dhadhansiinaynaa duuna alcadaabi alakbar cadaabka weynaa intaan la gaarin sukadiisa oo cadaabka yaru ilaahay sheegaya muxuu yahay waxa ka mid ah sida cadaabul qabri oo kale kuwa gaalada ilaahay oo ciqaabaya subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay sababahaas waxaan u samaynayno wax kale ma ahane lacallahum yarjicuun inaad soo noqotaan oo ilaahay aad garataan wax kale ma ahan ba ilaahay leeyahay marka la rabaa diintan waa taqaanaan culumoy dadkan juhalada iyo sheekh shantay kala fujiya dadkaas meel hala saaro waan ogsoonaa aniga meeshu xaqa meeshuu ka fariiso waysan yahay culumada wey soomaaliduna waxay tiraahdaa culumo horteeda cadaab lama galay tiraahdaa marka waxay arkeen kuwa culumo oo dabaalay arkeen markaas waxay sameynayaan waxay leeyihiin culumo hortooda cadaab lama galo ha waa dadka sidaan oo kale xaqa ka hadlayni wey ha laga soo hadla xaq ha la kala qaada baasha ilaahay wuxuu leeyahay waman adlamu yaa ka dulmi badan
ممن ذكر بآيات الله قف آياتها إلهي اللو شيغيو ولا ليها إلهي بسيدان ديدي قبري بومدان أدلا وريقي سلاح أردتك أو كدها يا مايا يا كظلم بدن با إلهي ليها قف أدونك جو كظلم بدن ما بجيرين قبلها وحا إذن ليها وحان ميشا أدقوها يسان كهارا هدادن دين كدخ مينين إله سبحانه وتعالى أي إذن كالما ويدي سنينا دين هداد كدخ مينين النوع عدايا يا شيخ هبل موسو هاد لإيو شيخ سام موسو هاد لإيو وحاس نجد دايا وحا لربا دين تان نيكا كوشيغا واتكا خادانيسا أدوكو لفتر كاد استجابي dharka inaad xoorata ma kula fiican tahay ma kula fiicna ina cirdigaada nasabkaada wax laga sheego ma kula fiican tahay hiblay waa dhinla ina lagu dhaho ma kula fiican tahay ma fiicna waad ogsoon tahay haddana diintii baad ku cayaaraysaa raggii baa waddada ka leexinaysaa marka dadaala mar dhowna waa la idin kala fuji doonaa culimada baa soo hadli doonta